xaas baan ahay. Waxaan ku riyooday saygeyga oo jirka ii maydhaya. Waxoogaa kadibna waxaan ku riyooday anoo isku xaaray. xanaka yacni waa garta dii waxa weeyaan qofta dumari ay ku riyooto sawjkeeda oo waxa weeyaan maaragtay u qubeynaya waxa halkaa ku jira labada qof inay laba qof oo waxa weeyaan insha Allah aad isu fahansan yihiin isku fiican oo waxa weeye ismaqla waxa weeye mashaakil xagga waxa weeye maadiga bimacna xagga dhaqaalaha ah waxa weeyaan ayaa insha Allah ilaahay idinkii ka maaragtay idinka leexsami doona waa ka gudbi doontaan nolol insha Allah fiican oo waxa weeye bila dhibaatana insha Allah waa gali doontaan ama tan waxa weeye xagga waxa weeye saxarada ku maaragtay la xiriidha hadii deyn ay jirtay waxa weeye lagu leeyay insha Allah deynta way ka bixi doontaa hadii waxa weeye cidhiidhi kala nololeed uu ka haysteen insha Allah ilaahay idinkii ilaahay waa ka qaadi doona intaasi riyadooda insha Allah daaran tahay ka cilaanka waliga cilaanka habeenkii ugu horeysay ahayd waan iga xumaaday qoftii marinaysana waan islayno dagaal baan ka dhex dhacay kadib mobil baa dhulka kaga dhacay mobilkii iyaduna ilaaday adaa qaaday anna marka mobilkii markii dambana meeshu yaalo laga helay laakiin sana waan dhaaranayaa waxaan leeyahay iimaan baa leeyahay aan xaraan bay iga timaaday oo saxartay walaal qaybta xinaha iyadu waxa weeye wariyo wanaagsan waxa weeyaan wariyo runtii aad iyo aad waxa weeye u fiican baabka waxa weeye xinaha wanaag badan buu leeyahay farxad buu leeyahay sacaado iyo waxa weeye reereyn buu leeyahay qofta dumar hadii ciriiri xagga nolosha ah iyo hami iyo diiqada ku jirta insha Allah way ka bixi doontaa aad iyo aad bay waxa weeyaan waxay kala tusaysaa qofku hadii qofta dumar iyadoo fariyeeda la xinaynayo ay ku riyooto inay qof adkaar iyo tasbiix badan tahayna insha Allah way tusaysaa insha Allah kulli riyadaada inaas baan iiga muuqda tan waxa weeye xagga sariqada hadii qofku waxa weeye uu ku riyoodo isagoo waxa weeye waxadaya ama waxa weeyaan waxyaabaha tooya loo haysto xagga muriadiisa bimacna qofka waxa weeye shakhsiyadiisa magaca uu waxa weeye bulshada ku dhaxleeyahay ayaa hoos u dhacaya marka insha Allah intaas ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga gareesiyay Allah ku sharfo insha Allah walaalaha kalena insha Allah naciimay hadal السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo dii fasirto insha Allah riyo in badan igu soo noqnoqotay riyadaas waxay ahayd habeenkii markaan seexdo ma suurtada marka ugu horeysa si fiican uma seexanayo ma gamcayo macnaha indhahan waan ka hurdaa laakiinse qalbigaygan wuu soo jeedaa markaad riyada ku riyoonayso kadib waxay carabkayga halkaa ballaaran ee carabka waxa iga buuxsamay timo fara badan timihii baan iska soo qaadisay timihii wayba tiitamayaanba waan soo jiidaa maba dhammaanayaan marka in badan oo ilaa hunguriga dhibasa iga soo go'do en silaawaadiga iska soo dhameeyay baa haddana carabkaygiisa halkii uun timo fara badani ay fadhiisanayaan markaa waan jiidayaa waan soo boodayaa deetana anigoo naxsan oo dhididsan oo qaylinaya iyada iska daynaa mise waan kuu fasiraa dee kolley sheekh adiga cilmi u leh ku qanacsantahay waa kolley riyo fiican ma aha sida adigu aad arkayso waxa weeye riyo wanaagsan ma aha haddii aad adigu jecesheena walaal waan kuu fasirayaa haddii waxa weeyaan insha Allah kolley qaybo fiicanna way leedahay qaybo xunna way leedahay labadaba isku jirtaa kolley horta wax walba waa qadar wixii ilaahay qoray un baana dhacaya arka haddii walaal aad ku insha Allah labadeeda qayboodba haddii waxa weeyaan laba qaybood weeye riyadu qaybna waa qayb xun qaybna waa qayb wanaagsan wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan insha Allah intii aan ka gaaray ikhwaan waan soo qaban doonaa hal shakhsi baan ahay dadka aan u jawaabi kara waa dad kooban
hayga fogaanina waan idin soo qaban doonaa insha Allah jaaniska waan idin sugayaa raalli ahaada aan dadka u jawaabo insha Allah marka inta jawaabaha dhameeyo waan insha Allah waan wada hadlaynaa barnaamijkan la share gareeyo shaashadii waa istaagtay shaartii waa istaagtay de mar walba miyaan hadlaa waxyaabahaas waa ceeb weeyaan haddaan idin idhaahdo waxa sameeye waa ceeb ukhti reer ma jiraa ay waqti xaadirkan ma jiro laakiin hore uu jiri marka riyadana intaadan reerka lahayn baad ku riyootay soo maaha may reerka hadda waan kala tagnay intii aan kala tagnay baan iyadu ku riyooday صح وي إن شاء الله ورياضاس waxay tusinaysaa qofta dumar hadii wax weeye ay ku riyooto iyadoo afkeeda wax weeye timaha ka soo jiidaysa laba qaybood weeye qaybta hore wax weeye waa azamaat iyo wax weeyaan dhibaatooyin wax weeye xagga mustaqbalkeeda iyo nolosheeda soo gaaraya waliba waxyaabahaana dambiyo ay qofta dumar gashay baa waxa weeye oo sababa qof bila dambiyana ma jiro hadii qofta dumar ay qof xanuunsan tahay qofta dumar haday qof xanuunsan oo xanuunada nooc kamida ay ka cabanayso noocu doono waxa weeye ha noqdo waxa weeye timahaana ay xoog afkeeda kaga soo saarayso taana waxay tusinaysaa waxa weeye caafimaadkeedu insha Allah inuu soo dhow yahay oo waxa weeye caafimaad doonto caafimaad badan insha Allah ay heli doonto ayay waxa weeye tusisaa waxay kala tusisaa waxyaabo talaabooyin ay qofta dumar dejisatay oo ay rabtay khidad ay maaragtay rabtay inay ku shaqeyso oo ay ku hawl gasho hadii waxa weeye ay jireen iyadana waxa weeye oo ka fashilmayaan inta way riyada insha Allah wixii Ilaahay insha Allah inaga waafajiyo wixii shirkeedana Ilaahay ka magan gal wanaageedana insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiiso